London waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu mashquulka badan. Malaayiin qof ayaa isgarab socda, halka kumanaan kale ay garbaha isku hayaan. Haddii aan kuu sheego in magaaladan sidaas u jaan badan una saxnad badan uu qof dhexdeeda uu ku dhiman karo, kadibna muddo ilaa 2 sano iyo bar aan ballaarkin. Sheekada aan ka sheekayn doono dhacdadii biyaabka badneed taasoo ka dhacday bartamaha London waa sheekadii Joyce Vexenes. Ma ahayn qof la dhibaataysan darbi jiif ama dhinaca dhaqaalaha. Badankood London waxaa ka dhaca dhibaatooyin kuwaasoo dadka qaarkood ay ka haysato caqabad ah dhinaca nolosha. Balse dhacdadan gebi ahaanba kuwii kale way ka duwan tahay. Sababtoo ah waxay ka soo jeedaa qoys lacag leh, waxay leedahay lacag. Vexen waxay ahayd 38 sano jir. Waxay shaqooyin muhiim ah ka soo qabatay shirkadaha waaweyn sida Entreg and Young. 2001 wax walba ayaa isbedelay. Joyce waxay isaga tagtay shaqadeedii. Waxay bilowday inay ka fogaato qoyskeeda iyo saaxiibadeeda. Waxay u guurtay guri dabaq oo lagu talagalay dadka khaaska ah. 2003 Joyce waxay ku jirtay gurigeeda waxayna diyaarsanaysay hadiyadaha. Tani waxay ahayd mid ay ugu diyaarinaysay saacadeed iyo qoyskeeda si ay ugu farxaso. Waxaa kaleetoo jiray inuu TV-ga u shidnay, halka TV-ga uu u shidnay si lama filaan ah. Waxaa ku dhacay xanuunka neefta ama asthma loo yaqaano. Maalin maalmaha ka mid ah iyadoo dhex fadhiga gurigeeda ayaa neefta ku dhagtay. Waxaan wehelay TV-geeda oo ay daawanaysay. Bariimo warshado ah oo badan ayaa is aruursaday. Kadib albaabkeeda hortiisa mana jirin qof dareemay xaaladda gabadha. Isbuucyo ayaa gudbay, bilo iyo sanadyo ayaa gudbay, sanad kale ayaa gudbay, iyadoo loo malaynayay inay ka imaanayso qashinka urta. Meelaha u dhow codka telefishinka oo weli socday ayaa lagu dareensanay qaylada carruurta iyo dhalinyarada ay degan agagaarka dhismaha. Ugu dambeyn, lacagtii ku jirtay bankigii akoonkeeda ayaa dhammaaday. Inuu u diro warqado tirabeel kuwaasoo ku dalbanayo lacagtiisii kama helin. Jawaab in ka badan 2 bilood kirada aan la bixin. Maxkamaddu waxay bixisay amar lagu xoojinayo inay jebiyaan albaabka guriga. Waxaa bankigu u yeelay $500,000, waxaana si otomaatig ah kirada, korontada iyo waxyaalaha kale isticmaasha waxaa si otomaatig ah bangiyada ay ugu goosan jireen shirkadaha agabkaas bixiya ama adeega u qabto. Waxay bil kasta ama xilliga kirada marka la gaaro ayay si otomaatig ah waxay bangiyada ay ugu goosan jireen si otomaatig ah lacagta. Waxa kaliya oo lagu ogaan doono gabadhan waxay tahay kadib milkiilaha qolka markii ay kirada ay gabadha ay ku dahday ilaa ay muddo 3 bilood. Waana meesha uu shakiga ka bilowday. Korontada iyo waxyaalihii kale oo kirada hayna iyadan lagu yeeshay. Midna ogow lacagtii bangiga oo otomaatig loo bixi jiray hadda lama bixi karo maadaama ay lacagta ka dhammaatay. Maalin maalmaha kinta waxaa soo baxay milkiilaha guriga asagoo doonayo inuu ka qaato lacagtii mishaarka. Balse waxaa dhacday wuxuu aaday dowladda si uu fasax ugu soo qaato inuu qolkaas u jibiyo. Wuxuu arkay qolka oo xirnaa booliska si uu codsi ugu soo qaato in uu qolka jibiyo. Waxaa kaleetoo cajiib ahayd markasta kuwa kula degnaay apartmentiga ama dabaqa waxay maqli jireen qaylada TV-ga. Waxay islahaayeen qofkan ama qofka meesha ku nool noloshiisa ayuu iska bataa. Sidaan ognahay, London waxay tahay magaalo mashquul badan oo nin walba qomanihiisa ayaa qoorta u jiro. Waxaa dhacday qolkii markuu jibiyey arrin lama filaan ah oo markiiba uu wadnaha la istaaga gaaray xitaa milkiilaha qolka. Iyadoo qalashay oo dharkeedii kulliin baxday halkaas oona ayna fadhiso kursigeeda iyadana ku aadan TV-ga taas oo meesha si toos ah ugu nafaxday. Daawade haddii dhacdadan ayay ku xajibisay fiidiyowga inoo la garay